si fiican oo gobonimo leh ayuu wasiirku noo soo qabtay shaar fiican buu na siiyey si wanaagsan uu albaabku naga hor yimi si milgale ayuu noo qaabilay waxaa la fadhiyey 4 wasiir oo ka mid yahay wasiirka saajin siciid sulub ina koore wasiirka isgaarsiinta cabdiweli si fiican baan ugu qorsheynay wuxuu yidhi waxaan idinku yeedhay si aynu u manaj garayn lahayn mudaharaadka khamiista securityga iyo positionisku ka dhici lahaa maadaama xeerkuna siinayo inaan cayino positionisku waxaan ku heshiinay markaa inaanu wuxuu soo jeediyeen aniga waxaan doonaynaa warqadda ku taalay inaan ka dhigino meesha khayryada la yidhaaho iyo beerta xorriyadda waxaa noo sheegay beerta xorriyadda in dad had qaar ku ganacsadaan dadkii suuqa ka dhammaaday ka gubtay waanu ka tanaasulay meesha khayryadda ayaanu ku adkaysanay laanna waxa weeye mudaharaadka waxaa lagu dhigaa public areaska centreska meelaha dadka ilaa iyo kontameeyada khayryaddu meeshan dadka kale ka hadi jirnay beeda waa caano wax u dambeeyey madaxweynaha muuse oo habeen dhexdaasa waa kii dee halkaa kula kulmay khayryada dhalinyaro badan iyo waxay yidhahaan markaa labada xafiis ay leedihiin xafiisyadiina ka dhiga la yidhahay war xafiisyada ka dhigin ma inay khayryada ayaan ka dhigin may xafiisyada ka dhigaysaa waxaan ku heshiinay inaan isku soo noqono maanta horta in wiilku noo yeedhay oo warqadda noo soo diray shalayto isla habeennimadii uu 5 xidhay la xidhay ma garanaysaay wadaniga waxaan nidhi aan wada hadalnayo waan xiriyaa adduunka ma dhacdo marka wada hadal la bilaabiyo jawi wanaagsan baa lagu abuuraaye jawi la xumeeya maaha xalaytan haddana wax qaar kale la xidhay wadaniga marka waxaa muuqataa inay waxaan nidhi war wax xadhiga aan sharciga ahayn waa wixii aynu ka dagaalanay oo wixii aynu ka dagaalanay inagu isku isticmaalina ayaan ku yiri dadka la soo daayay waxaan ku heshiinay inaanu maanta isku nimaadno 9 subaxnimo xafiiska si aanu u yimaadaan taliyayaasha booliisku annaguna aanu diyaar garano ilaa 200 oo dhalinyaro ah oo nabadgelyada kala shaqeeya marka aan Britain nabadgelyadii aan ka shaqeeya saasaan ku heshiin saaka markaan nimi waxaan kula kulanay arrintii goobihii ayaa xafiisyadii ay shalayta ogolaayeen ayay diideen waxay yidhahaan waxaan doonaynaa 6 gobol 5 gobol aan caasimadda ku jirin waxa soo saamiyey barasaabyadiioo in laga dhigo laba burco iyo meesha la yidhaaho saaxil ucid ayaa xafiisyadooda meel bannaan leeyihiin oo laga dhigi karo 3 gobol ah sool iyo sanaag iyo awdalla waxaa leh wadani ayaa leh in meel laga dhigi karo marka taa aan ka shaqayno waxaanu may khayriyooyinka ka security badan waxaan horta doonaa waxa weeye waxa mustaqbalkii dalkeena iyo nabadgelyadiisii ayaan ku hadlaynaa yaanu ficiltan iyo hebel baa hadlay iyo hebel baa saa yidhi oo isku muuqanaa oo halkaa inagdhay 30 sanadood baan ku yidhi waxay yeelaysaa khayrooyinka burco iyo ceerigaabo iyo buurma waa arkay halkaasaa u security fiicane halkaa aan ka dhigno oo waxa weydiisaan barasaabayaasheennii bal meelaha xafiisyada iyo khayrooyinka hagaagsan nabadgelya fiican yani waxaan iskala tagno kooda iyo barka aan isku soo noqono anna waxaan la soo tashanaynaa qoladii madaxdii wadani
qolada wadanaan ku yimi qolada waxay la qaateen oo ilaahay khayriyada hadday diidaan shanta gobol waa ogolay khayriyada hadday diidaan Hargeysa sidii shalay ay sheegeen ay warqadda ku soo qoreen xafiisyadeena Hargeysa aan ku sameeyno wata warqadda waan idin soo wada diray tifiyada waxaan ku soo diray electronic marka meeshii tagnay ay maanta ku noqonay koodii barkii aynu arintii marino isku hayno maye ka daayo oo xafiisyada ka daayo waxa ka dhigtaan xafiiska magaranaysaa New Hargeysa war xafiiska New Hargeysa wadani baan idhi mar baan tegey waxaan ku yidhi war meesha ma helicopter baa ku tagtaan baan ku yidhi meel ama ma jirtee ya meeshii asharifay wagaalatin maxaa halka ma kan marnaa nin ka mid ah wasiiradii waxa soo jeeday wuxuu yidhi oo shalayta aan nala joogin horta maalintii ma laga hadlaa war maxaa maalintii nagu soo celiyey nimankii maca wasiirkii arrimaha gudaha shalayta wada hadlay ee saaka igu lahaa adee khamiista way dhowdahay aan lahaa maalin ba ka harsan ani war maalin kama harta waa brito khamiista nala ogolaa waa la bedelay wasiirka hadalkiisa u qaatay maanta koodii barkiisan u noqonay ilaa iyo markii aan ka soo baxnay waxaan ka wada hadlinay waar maalinta waynu ku heshiinay ma hadib haynoo celinina khamiis sabta ka dhigay war ayrsabay ka daay waka halkaa markay mariso anugu waan iska dhigay gudoomiye xusbiyo oday reer Soomaaliya baan noqday waxaan ku yidhi war maanta ergaan idin yahay weligii 4 sano iyo badh baa joogtiin war weligii tanaasul ma sameyn war madaxdu tanaasul bay sameeysaa waa lagu baxsadaa riyaalaynu halkaa labadeena inaga iyo kulmiye aynu ku qasanay inuu soo horeysiiyo doorashada madaxweynaha u dambeysata deegaanka oo inaga yeelay aan oran sidoo marka tirahan laba nin waa isku reero wayna qalaxayaan aan oran reer isku reer baa tii way qalaxaysaa war xishooda si aanan ula hadlo toban wasiir bay ku yimaadeen toban si aanan uga marina ayaan waxaan isticmaalay diplomat channels rag aan ku ogay xal xijalayn war meeshii yaan la kala tagay dal kala kaco maanta madaxweynihii gaarsiyo waxa tiraa wasiirka la soo hadal waxa tiraa yaan la kala kicin alxamdulillah channels ka bashaqay iyagoo diq iyo halkii taagan oo qof 10 kaan in shan ba hadasho mid qura oo oranaya war way hagaashin waxa waynu ku heshiinay naga socodsiyo ma jirto ayaa telefoon soo dhacay telefoonka markuu soo dhacay wasiirkii arrimaha gudaha ayaa la kacay qol buu la galay wuu soo noqday wixii isku kaaya daaya naga raali hada markaa waxaan fahamnay inuu telefoon khayr qaba madaxweynihii uu soo diray waana ka soo baxnay 550 mirir ayaan dibadda joognay soo galay aan soo galay wasiirka oo faraxsan hagaagsan uu si fiican buu baanay maxamed kaahin marna waa maxamed marna waa kaahin abiyo kale uu taliya si fiican uu taliya kiyo kaahin axmed ayuu hadlay wuxuu yiri dooniyo waan ku sharfina adaan awooda wax u yeelnay intaasoo tanaasuban ku sameeynay taasaan sameeynay waa mahadsantiin maantana maalintii waa kuu daynay khamiistii ilaahay khayr u siiyaan ku yiri warqadan baan markaa qornay warqadan ku dhaqma warqadan markaa xoonaysaa shantii gobol sidii hore ay noo siiyeen ayay yidhaaheen anna ogolaanay inaanu meelaha xafiisyada ka hadalno tii Hargeysay bedeleen waxay yidhaaheen tii Hargeysa waxaad tagtaan duruqsi baan u bixi xafiiska waa duruqsi ma taqaan duruqsi xadkay ku taalaa waa duruqsi baan ku yidhi war meel la maraa ma jirto ma taa qaata oo adnadu wadiga naga adkaadeen ee wadani ka adko ee waxa uu aqli gala laga adkaadahay
wax aqriga waxaan suurtagal ma ahe inaga daaya ilaa hadda waxaad noo soo kari weydeen arrintaasaan ku dabaaldegin markaan arrintii eegnay waxaan noo qaragnay inaanu labada warqadoodba wasiirka inay ka timiyeen inaan tii hore ee xafiisyada sida gobolada kale ee shalayto ay nagu qasbiyeen inay war ka daayo khayryada inaan tii qaadano ayaan doonayna marka waxaan leeyahay shacabka reer Somaliland xil weyn bayna saaran dadkeena inaan maanta ilaalina weeye waa inaan ogaanaa dadkeena maanta si ku nool yihiin inaga way mutaysan biyo la'aan iskuul la'aan caafimad la'aan shaqo la'aan iyo in dhexda ku murano 120 milyan oo dollar ayaa biyo laynoo sii hargeysa 60 milyan waxa bixiyay waxa lagu soo sameeyay biyaha geedeebli 50 milyan waxa bixisay Dubai Imaaraadka waa xunba weyn 10 milyan dam marka la socdo laga leexdo berbera ayaa lagu bixiyay waa 120 milyan ayaynu ka oomanay haddii nahay reer Hargeysa halkeen tuulooyinkeena ka cabiya taayirka aynu biyo gelin lahayn 30 sano dawlad bayna iyo laba horta tamarteena waa taa tamarteenu waxaynu haysanay tanaasul iyo isqabsasho iyo isku tanaasul iyo alxamdulillah marka dambe heshiiye 5 sano ma heshiin ma qora marka waxaan leenahay waa raali naga ahaada dhalinyarta dadka maciisho ku korday cid allaay cidii tirsanaysay ee lahayd talaay dawladnimadeed mudaharaadkaas ay noo noqdo mudaharaadsan oo dadka aanu baranno inaynu mudaharaad inaga iyo booliiskeenooba nabadgelyo ah aan samayn karno dadka masaakiinta ilaahay subxaanahu wa tacaala shanta xabadoo muuska iibinaya dumarka ah ee maanta ka xidhan aan birita tageen dhibaato kale ugu soo sameeyay wax la cid wax boobisa qabta cid wax xumeynsa qabta iyo inaan si dad ilbaxa oo dalkooda iyo dantooda daneynaya laakiin dareenkooda tusiya oo dawladda waxa lagu gartaa wada aragteen White House-kii baa lagu mudaharaadaya waxa dawladda shacbigeedu markay naqaska iskaga sii daayaan inay tusaan shucuud halkaas dawladdu markaa ku qaadataa go'aan ay tanaasul keento tanaasulkaasaan ka doonaa insha Allah taala in ku soo noqdo dastuurka ayaan doonaa insha Allah taala inaan mudaharaadka wax kale oo cunfi oo damo ka dhabtaan ay jireen wadada ku soo noqdo ayaan Ilaahay ka barnaa subhanahu wa taala